wax badan oo dunida maanta nool lahay oo possible jira laakiin adigu diyaar ma u tahay maskaxdiisa au fikir karayso fikir noloshaada beddelaya goolkii ugu hagaaji horta the right goal inaan doorto horta goolkii saxda inaan doorto because so many goals maanta ka fikireen direction badan haysto sidoo blocking u samayn karaya markuu wax akhrinayo kale waxaa isbedel qofku keenaa tiri in badan oo kamid ah waxay sugaan inuu isbedelku ku dhaco waxay ka dhigaysaa qisadaas wax weyn dad badan bay anfacaysaa marka maanta role model ku ah hadda noloshiisa lagu furo wax adiga ku fiican tahay soo kuliitaa jira marka halka waxay ku siinaysaa little bit self esteem iyo kalsooni iyo maartay dhiirigelin bay ku siin ganacsi loo bilaabo ama sidoo ganacsiga uga bilaabay scratch so maskaxaadu waxa dhacaysa fursad adag ku banaanay ku tusi karto it's very possible waqti fursadda maanta nool lahay find the right people maskaxdaada hubee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو أمار بودكاستيغا شحدة جوشة بودكاستيغا waxaynu soo sii deynaa usbuuclihii hal mar waxaanu soo wareysanaa dadka ee guusha kamira dhaliyay iyo mar aan la wadaagno xogaha muhiimka maadaama aynu noolahay waqtigii informationka qofku ka information badan yahay uu yahay qofku ka hormarsan yahay waxaanu go'aansaday inaan la soo wadaago bulshada xogta muhiimka iyo sidii noloshooda uga faa'iideysan lahaayeen iyo xogta ay u heli lahaayeen inta aynu barnaamijka guda gelin haddii aan nagu soo biirin waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto subscribe samayso lana qaybsanto bulshada aad la jeceshahay sidoo kalena aad nolol wadaagto xogaha aad jeceshahay inaad wax ku ogaato ama dadka aad jeceshahay inaad martida kusoo casuuno maanta waxay noo marti ah ustaad mubaarak waa tababare waa qoraa walba diyaar u ah bulshada inuu kusoo kordhiyo xog muhiim ah iyo sidii hadafkooda uga mira dhalin lahaayeen iyo jidkooda guusha ama jidkooda nololeed sidii ay ku gaari lahaayeen ha noqoto dhan family ha noqoto dhan ganacsi iyo ha noqoto dhan mindset ah iyo cilmiyan aba sidii uu qofku ku noqon lahaa qofka ugu wanaagsan ustaad mubaarak aad baad ugu mahadsantahay waqtiga aad soo qaadatay iyo saad aad nooga aqbashay casuumaadda ustaad mubaarak waa kuma maxaa ku darsan lahayd ustaad aad baad u mahadsantahay nafka waranka ugu adag qofku markuu naftiisa welida odayaalna maynaan noqono history dheer oon leenahay sheegnana ma laha laakiin de iska qof qoraaya wax qoraa macadka PhD center wax ka asaasay tababara ah dadka la hadla wax barista jecel dadka inuu wax baro jecel inuu isbedel fikriya uu ku sameeyo jiilka maanta kacaya waa qof Soomaaliga aan u baahanahay sidee loo abuura mid ka mid ah su'aalahan isleeyahay inaan isbedelka aan doonayno inaynu horta inagu noqono isku hubeyno aqoon xirfado isku hubeyno iyo aqoon wacyigeena kor u qaadno deetana aan tayeyno dadka kale aynu doonayno inaynu soo saarno qofka Soomaaliga aynu doonayno inuu kaalin ka galo caalamka arrimahaasaan ku hawlanahay qoraalkayga iyo tababaradan bixiyo iyo muxaadaraadkayga iyo meelahan ka hadlo dhammaan fariintaasay daarantahay sidii loo heli lahaa qof muslina tayeysan wacyiga dunida iyo meesha ku nool yahay yaqaana noloshana wax kusoo kordhiyan isagoo culays ku noqon barnaamijkeenu waa isbedel baad ka dhawaajisay waxaad diyaar u tahay dhalinta isbedelaysa inaad garab istaagto sii hagto podcastigeenuna waxa weeyaan sida magac waa ka muuqda shaxda guusha markaa qof maanta ina daawanaya dhalinta audiensiga nagu xiran israba inay bedel nololeed sameeyaan qofku isbedel u sameeya maxaase dhaliya inuu isbedel dhaco ama shakhsiyan ha noqoto ama ha noqoto ku family qofku suu isku bedeli karaya isbedelku horta qof walba wuu isbedelaya isbedelku waa wax socda wax la celin karaya maaha cid kasta isbedel baa ku dhacaya laakiin isbedelkaas laba nooc ah dadna wuu ku dhacaa dadna way horseedaan dad iyaga horseeda oo isbedelka yacni gaariya wuxuu lahaa haddaan gugii kuu kordhaa gabo mooye ku tarin garaad iyo waaye arag ileen wax ma dhaantid geed oo geedka laftiisu cimri baa u kordhaya oo geedku marna waa dhal yahay mar waa meel xumaraya mar waa weynaanaya oo dheeraanaya bani aadamkuna da'da marka adigii geedka maxaad ku kala duwantihiin geedkan isbedel baa ku socda marna caleemaha waa ka dhacaysa marna caleemaha u soo baxaya mar wax buu yeelanaya mar way casaanayaan qalalayaan right adiguna isbedelka marka dad in badan dad ka mid ah isbedelku ku dhacaa laakiin iyagu isbedelka ma horseedaan isbedelka horseedidiisa marka meesha way halka lagu kala tegay in badan oo ka mid dadku waxaa isbedel qofku keenaa tiri in badan oo ka mid dadku waxay sugaan inuu isbedelku ku dhaco oo qof geeriyooday familkooda geeriyooday shaqa laga soo eriyay arrin xanuun badan baa laga yaabaa qof markay ku dhacdo
deetana marka in uu doorto inuu isbeddel markaa la yimaado ay ku kalifto laakiin isagu proactive noqdo oo isagu uu horseedo isbeddelkaas ayaa muhiima laakiin qofku wuxuu ku garan karayaa inuu isbeddel u baahan yahay ama waxyaabaha kale qofku inuu isbeddel u baahan yahay xog ka mid ah haddaad himilooto si uun haddaad doonayso inaad noloshaada kob cusub leh oo ka qurux badan meeshaada aad joogto inaad u diga rogato isbeddel baad u baahantay inaad isbeddel u baahan tahay bay ku tilmaamaysaa waxay ku tilmaamaysa sidoo kale isbeddel u baahan tahay haddii noloshaada isku ekaato routiniyaad iska noqoto inaad isbeddel u baahan tahay bay tilmaamaysaa if you doing the same thing for the last 2 years same thing hadaad samaynaysid isbeddel baad u baahan tahay waa isbeddelku wuu socdaa either waad koraysaa oo horaad u ruqaansanaysaa ama gadaal baad u socotaa nolosha wax u dhexeeya male average wax la yidhahdo nolosha ma jirto shalan buug kalaabka waxaan ku akhrinay buug la yidhahdo the 10x rule uu qoray grant yani average nolosha ma jirto wax average ma jiro either waa progress baad samaynaysaa ama dib ugu dhacaysaa marka wuxuu tilmaami u lahaa dad baa jira meeshooda heer bay soo yara gaarayaan jaamacaddii bay ka baxayaan xogeero shaqo yar fiican bay iska helayaan nolol fiican bay iska samaysanayaan halkaas iska fadhiisanayaan noloshu way socotaa isbeddel baa socda tintaadu way isbeddelaysaa oo jidhkaaga isbeddelaya intaasoo kunoo cells baa dhimanaya intaasoo kunoo cells baa cusboonaanaya neuronskaagii baa isbeddelaya everything about you isbeddel baa kugu socda shalay waxaa laga yaabaa caadi inaad xirinaysa maanta waxaad xirinaysaa dharkii ama waa kaa yaraadeen ama kugu weynaadeen waad caatooda ama waad waxaasoo isbeddel kugu socda hareeraha isbeddel baa ka socda marka either waad ama progress baa jira horaad u ruqaansanaysaa oo ogaalun bay ku imanay karaysaa ama dib ood u socotaa marka qofka hadduu averageka iska dalbo oo nolol routine iskaga qanco khasab dib buu u socdaa because wuxuu ku cabiri karaya male inuu hore u socdo because wax isaga ka yimi ma jiro waxaa ka mid ah waxyaabaha qofka isbeddelka ka hortaagan oo kale ama u tilmaami kara inuu isbeddel u baahan yahay hadday noloshaada macno yaro beesho oo aad yaro dareento noocma niyad jab noocma maaragtay stressku kugu badan yahay noocma depression aad yaro dareemi karayso arrimaha hadday yimaadaan isbeddel baad u baahantay laa shak because xaaladaad ku jirto inaad wax ka duwan aad dalbayso doonaysa ayay ku tilmaamaysaa waxaa ka mid ah inaad goobo la qabsatay haddaad circle gooniyaad saga jirtay last 2-3 years laftigeeda isbeddel bay ku tilmaamaysaa arrimahaas o dhan waxay calaamado u yihiin inaad isbeddel u baahan tahay laakiin qofku siduu isku bedeli karayaa horta waa in horta caqabadaha isbeddelka iska horleexiyo caqabado fara badan oo isbeddelaa jira qofku hadduu fixed mindset leeyahay isbeddelka caqabad bay khasab way adkaanaysaa inuu isbeddelo waayo ma arkaba inuu skillskiisa horumari karayo wacyigiisa horumari karayo aqoontiisa horumari karayo noloshiisa mid ka duwan mid ka qurux badan tan uu growth fixed mindset buu ku noolyahay growth mindset baa lahaa marka inuu qofku fixed growth mindset samaysan karayo hadduu baqdin failureka ka baqayo isbeddel kuma tilaabsanayo haddii uu dib u dhigasho un hadii jeer ku jiro uu leeyahay maya wallahi dib baan u dhiganaya maalinkaas safkaas sameynaya hadda waxba isku mikay gaadhsana noloshuna waxay waqtiga wax suga gaadhayaan ma jiro haddii uu ka baqayo dadku hadaladooda iyo haddaad saa ama samaysa isbeddel kastoo la timaadid oo lagu maagaya maa min isbeddel haddaad damacdo inaad wax barato keliya dadka kugu hareeraysan le maanta buuga qaatay maanta sidan sameeyey beryaan waa sakay weynaysiinaya beryaan sidan marka waa lagu maagaya you have to be ready in lagu maago in badan ka mid a dadku maxaa la yidhaahdo uncertaintyga baqdimaha dadku ay ka baqayan badan waxaa ka mid a bini aadamku mar kasta oo noloshaadu maskaxdaadu meel bay la qabsatay maskaxdiinu fakshanada inta badan ay qabato waxaa ka mid a inay inagana badbaadiso so maanta nolol caadi aad iskaga baratay routine baad leedahay routinkaaga wax ka baxsan maalinkaad samayso maskaxdaadu heegan bay gelaysaa waxay uga falcelinaysaa siduu libax ku hortaagay oo kale waxay ku leedahay unknown territory baad gashay annagu ma naqaana meesha marka sidoo qofku la falgali karaya maskaxda u diidaysa cabsida ku ridaysa in uu la dagaalamo you have to feel the fear actually fear ku laftigiisa waa indicator mar kasta oo aad ka baxayso goobadaada goobo ka duwan baqdi ma dareemaysaa waa la shak maanta hadaad doonaysa public speaking aad sheegayso waad baqaysaa macnaheedu inaad baqaysa macnaheedu ma tilmaamaysa inaad u diyaarsanayn inaad goolka aadan rabin inaad public speaker noqotid laakiin waxay tilmaamaysaa waxay ku leedahay ustaad camaaro wax cusub baad samaynaysaa 4 qof baa la hadli jirtay maanta laakiin intaasoo qof baa ku daawanaya hebel iyo hebel baa ku jira oo ku dhaliili doona mujeda marka fooman kala duwan bay soo qaadanaysaa de waa inaad tiraahdo okay yes waa dareemaya and I know preparationkaygii iyo diyaargarowgii waa ku kalsoonahay kuna xisaabtaad si og tahayna de yani the first only 2 second 3 second 4 second laga yaabaa the first 10 second
inaad dareenkan aad dareemaysid maaragtay baqdinta iyo anxiety-ga iyo aad dareemaysid laakiin aad tirahdo okay I'm gonna do it anyway waxaan xasuustaa interviewdii iigu horreeyey ana kaaga sheekeyna ma garanayo interviewdii iigu horreeyey waxaan ahaa qofka ugu khibradda yar si un baa laygu yeeray kasoo qaybgal baa lagu yiri I think 2010 meelaha ayna ahayd baan u malaynaya Universal TV bay ahayd markaa waxaa dhacday waxaa ku jira waxbarashada laga warramaya marka waxaan aqoon u leeyahay bay ahayd daneynayay laakiin still markaan arkay dadka meesha fadhiya panelka fadhiya Skype baan kaga jira dadka panelka fadhiya markaan arkay waan naxay waxaa ku jira wasiirkiisa waxbarashada Somaliland waxaa ku jira agaasimayaal waxaa ku jira wasiirkii waxbarashada Puntland waxaa ku jira wasiirka waxbarashada Soomaaliya dowlad deegaanka qof laga soo xiray anyways qofka ugu khibradda yar baan ahaa it was marka sidaa u arkay automatically inuu libaaxay hor taagan yahay iyo inay maaragtay dad un halka soo fadhiyayiin wax maskaxdeedu way kala saari weyn duca maskaxdoodu marka reality-ga iyo ma kala garan karayso iyo waxaad imagine garanaysid si kale marka loo eego dhan kale marka laga eego goalska marka la dhiganaya la yidhaahdaa laakiin halka markay taagan tahay inuu libaax hor taagan yahay iyo inaad dadkan culculus ee meesha fadhiya aad isleedahay armaniyo ku ceebowdaa maskaxdoodu same way bay heegan u gelaysaa waxay leedahay territory cusub baad ku jirtaa fight or flight or freeze xaaladii ku gelinaysaa iska caabi waxaan ku hor taagan ama carar oo baxso ama isdhiib waa tawu daran waxaan xasuustaa wasiir Omar iyo rag badan baa ku jiray waxaan xasuustaa hal mar markii kelmadii liisii su'aashii la weydiiyey ayaa kun markaan sidaa u dhaxgalay baa waxa igu soo degay kun fikradood waxaa ka mid ah fikradaha aniga cidna war kuma haysee bahalka iska maad un meesha calaamadda cas un taabo hadhowda khadka iga xumaada dheh I felt the fear waan dareemay baqdintii deetana waa kusii socda maskaxdeenu registers wax walba sida Abraham Maslow uu yiraahdo wax kasta maskaxdaadu way register garanaysaa jirkaagu uu register garanaya wax kasta oo samaysid oo ku dhaca iyo ka carara either waa +1 or -1 kalsoonidaada self esteem kaaga self image kaaga halka doonaysid inaad hiigsanaysid waxaas oo wax very complex isku xidhan weeyaan maskaxdu marka waxay register garanaysaa hadaa maalinka ka carari lahaa way fududay inaad kansar ilaado cidda iga daba waxaynaysana ma jirto I knew waxaan ogaa haddaan tan isdhiibo kuwa kalena way adkaanaysaa it will be much harder marka dambe way kasii adkaan doontaa then I have to face the fear marka shaqo aan ku keenay dareen fearka because already waa taqaanaa meeshaad u socoto inaad isbedel sameynaysana waa taqaanaa marka ugu daro fearka unknownka iyo fearka kale aragtiyooda iyo fearka maaragtay inaad wixii ku guul daraysatid taa inaad qofku guul daraysto guul darada waaba salaankii qofka guusha ku gaaray haddaad guul daraysan ma garan karaysid inaad guulaysanaysid iyo in kalaba waa salaankii aad u maraysa weeyaan aad u maraysa qisadaas waxa weyn dad badan bay anfacaysaa mararka qaarkood dadka badana dhalinta waxa dhacda inay cabsidaa kale hadda uga joojiyaan soo waxa ugu fudud qofku samayn karaya waa inaad hawsii joojiso khalaas aad noloshaada afkaaga aamusiso ma karay waxa samaysay go'aan baad qaadato tiri okay waan sii wadaya maxaa kuu sababay message jira albaabo karaya qofku waxyaaladan uu ka hortay karaya qaladahan ka hor imanaya cabsida ha noqoto dadka kale waxay ka sheegayaan ha noqoto kaga imanaya isaga naftiisa kan la hadlaya ee ku dhex jira ee mar lale ma samayn karaysa ma qaban karaysa ha noqoto sidoo qofku isku diyaarin karaya ama wadadoosa u mari karaya laba dhinacan ka istaagno mid haddaan arrintii hadda public speaking-ka dad badan baa laga yaabaa public speaking kari doona midna isbedelka kalaan ka eegi doonaa midna sheekadan hadda ayaan ku xiri doonaa dadku qasab waa inaad horta taqaano because anigu waxaan ogaa tan iyo yaraanteena ogaa inaan doonay dadkana la hadlo so this was my goal inaan public speaker noqdo so wax kastoo caqabad kugu noqon karaya waa inaad sii ogtaa public speaking-ka caqabado badan buu leeyahay mar kastoo dadku xitaa aduu 2,000 oo qof ka soo hor hadlay 10 jeer aduu ka soo hadlay still baqdinta ayuu dareemaya laakiin isku mid maaha maalinkaad bilaabaysid iyo maalmahan kale isku mid maaha استراتيجيه la sameeyaa jira oo public speaking techniques la sameeyaa jira oo qofku yaani inuu horta preparation la yimaado the more you prepare an wax maalinka ay dhibayo waxa kamid ah maanan diyaarsanayn wax yar oo isxan moodayay iska sheekar
عشان عادي ما هو يسي شيء لولا أن سيو قال له هين وزيرة رقنا عاصي منيان حبذا بس يديار جروب لها مركب preparation I think was important وحكست interview دي لقى قاضية الله مستعان مركب كل برامج كحن كوير بالسؤال حتى أنكش كيسان إنه ثيم مسك يجورها it's very important إنك تقرني يصير وحنا تكور رميسة يا الله ورميسة يا الله خطابسة يا كورة سنة يا public speaking ماشي ديمانيس دي الله حلسة يا كسوق يبقى ضد نوعية ويا إذا أنت preparation كان قاعد سميسته كل عليسو dadka lama sheekaysan karaysid si raaxo leh lama sheekaysan karaysid haddaadan preparation aan caadi ahayn aad sameyn buugalka ka soo muuqdo la yiraahdo talk like TED ayaa ka warramaya 9 sir buu ka warramaya oo laga soo ururiyay ilaa 200 qof ee ugu saameynta badnaa speechkooda ama ugu dadka ugu daawashada badnaa TED Talk tana mid ka mid ah waxa weeye Kawir baa wuxuu leeyahay 40 jeer buu ku celiyay speechkooda Kawir 40 jeer ka preparation talabaad technique kale oo isticmaali kara ka jira saaloo kale markaad stage ka inta soo istaagin halkan kaliyaaga qabso sida uu istaag aroonaad arkaysan ma garanayo laakiin qofku sida uu istaag oo kaliyaaga qabsado sida uu yiraahdo up to 20-30% ayay maaragtay hormoonkiisan baqdinta keenaya iyo cortisol levels ki hoos u dejinaysa dopamine farxadna way siinaysaa marka kalsooni buu ka qaadaya oo baqdin fara badan iyo ku iman lahayd ayaa u fududaanaysa marka uu the stage ka soo istaago marka is good 2 minutes inuu qof soo sameeyo ama uu deep breath qaato meelaha ka geli karaya kamid tahay arintan maaragtay public speaking oo kale ama arintan kale ku saabsan isbedelka sida guud qofku hadduu doonayo inuu isbedel la yimaado albaabada ugu waaweyn waxaa kamid ah hadaaf inuu leeyahay tanna maxaynu yiraahdaa markaan public speaking sheekeynayni waa inay kaa go'an tahay waxaan waa inaad u socoto maalin walba waa inay xisaabin karaysa intee leeg baan u dhowaa maanta 10 meelood baan ka hadlay last couple of years dhowr iyo 10 meelood baan ka hadlay inta baan ka hadlay fursad kastoo aad speech ku heli karaysid inuu qof ka faa'iideysto oo uu hadlo saddex qof haddii yidhahdaan wax noo sheeg uu hadalkiisa jeediyo laakiin marka ay noqoto goolka marka muhiima arrinta muhiimka oo waa goolka inuu qof horta leeyahay hadaf ka leeyahay uu doonayo waxaan ka go'naanta waa inay jirto isbedelka noloshana albaabada ugu waaweyn laga galo waxa kamid ah hadaafta maalinka hadaaf dhigato waxaad gashay mid kamid ah albaabada laga galay isbedelka mid kamid ah albaabada laga galay talabaad waxa kamid ah waqtiga haddaanu qofku waqtigiisa aanu iska juul gareen koorso iyo laba ka qaadan buug iyo laba ka akhrin sidoo waqtigiisa u maareyn lahaa ka fikirin sidoo waqtigiisa u prioritize gareyn lahaa aanu ka fikirin waqtiyadu blog arrimaha aanu ka fikirin isbedel ma dhaqaaq karis maanta wax kastoo doonaysa inaad noloshaada kusoo kordhiso ii sheeg mid kastoo waxay kaaga baahan tahay waqti so waqtigaagaas sidaad u beeqaansan lahayd adigoo hawlo badan haya sidaad u beeqaansan lahayd haddaadan garanayn it's gonna be very tough day waa mid kamid albaabada laga gala isbedelka weyaan waana istuliska ugu weyn maadaama waxaan joognaa maanta waqti adduunka oo dhan isbedelayo informationkii qofkii ku badan yahay daqiiqad kasta wax cusub imanayaan xataa wixii aad isku diyaarisay laga yaabaaba inayba shaqayn weydaba uu system cusub soo galay soo qofka hadduuna garanay waqtigiisa sida uu isticmaalayo iyo siduu uga faa'iidaysanayo iyo siduu meel uga gaarayo way adag tahay inuu guul ka gaadho waxaa soo ustaad kolley waan events kala qayb galeen berimansad time managementiga ugu soo bandhigaysa inkastoonan podcastingan dhammaanteeduna aan kusoo bandhigi karayn oo dhowr saacadood qofku u baahan yahay oo waqtiga experience-ga adigana ay tahay ilaa 10 sano oo dhan khibrad aad ururinaysay intaas boqolaalka book eed akhriday iyo time management qofku sida uu samaynayo iyo sida ugu gaarayo waxaan ogahay inaad diyaarinayso hadda waqti xaadirkan time management dhalintu say u samaysan lahayd waqtigooda uga faa'iidaysan lahaayeen waqti kooban hawlahooga ay u qorshaysan lahaayeen suu qofka hadafkiisa uga mara dhaliyo ma jirta hal iyo laba aad u taaban lahayd oo time management qofku qaabka loo qorshaysto iyo sida uu uga faa'iidaysan karay waa su'aal runtii aad u wanaagsan weeyaan time managementu waa istiraatiijiyado iyo techniques iyo waa adigu waqtigii lama celin karayo waqtigu wuu socdaa waqtigu waa ordayaa adigu maalin walba waxaad haysataa 24 hours baad haysataa way socotaa subaxii markaad soo kacdi ilaa aad gogoshaada kaga laabanaysid 86,400 second baad haysataa cid walba dadka dhan waa isku wada mid dadku waxay kala tagay marka sidii waqtiga looga faa'iideysto marka waqtigan sideen uga faa'iideystaa you have to know the skills you have to know strategy waa inaad garanaysid techniques waa inaad garanaysid tabii iyo xeeshii aad waqtigan uga beeqaansan lahayd
and تكواد ارتواء you have to have a goals nolosha I think wax walba the goal هدف bay u baahan tahay you have to know what you want waxaad tuwanad garanaysid waqtiga lama kaydin karayo laakiin waxay dhahdaa waxbaa laga kaydsan karaya 12 hours maanta ku maraysa oo maalin ah habeenkii de waqti kalaaba ama waa la jiifaa ama guryaha la jooga ama waa la nasanaya ama waxbaa kala helaya 12 saacadood haysid ama 14 saacadood haysid badhe waa inaad odhan karaysid wax kama kaydin karaysid ma odhan karaysid raashin maanta waad kaydsan karaysaa lacag waad kaydsan karaysaa laakiin waqtiga ma kaydin karaysid waa inaad tiraa okay 12 saac 14 saac way dhaafaysaa maxaan ka kaydsadaa labadan saacadood waxaan kaga kaydsanayaa wax akhris labadan saacadood waxaan kaga kaydsanayaa course labadan saacadood waxaan kaga kaydsanayaa maaragtay inaan maaragtay maxaa la odhan karayaa inaan asxaab ku create gareeyo ama aan connection ku samaysto shanta saacadood waxaan kaga create garaysan karaya inaad $100 ama $200 akoonkayga kusoo kordhiyo ya waa intaa shanta saacadood waxaan kaga faa'iidaysan karayaa in aan hurdo dee aan waxyaabahan kale oo dhan ku qabanayo inaan maaragtay dad badan baa hurdada dayaca hurdadu mid ka mid ah waxyaabaha aad waqtiga kaga kaydsanaysid weeyaan 10 saacadood aad hurdid ama 8 saacadood aad hurdid ama 5 saacadood aad hurdid xal 3 saacadood baan saxday 3 saacadood tamar baan kaga kaydsaday of course hurdadu wax ka badan bay qabataa shaqooyin fara badan bay qabataa waxbaan ku baranaa waxbaan ku xalilaa gudaheeda shaqooyin fara badan bay qabataa subconscious lama seexataa habeenkii laakiin waa inaad tiraahdo eeg labada 3 saacadood xalaan seexday 24 saacadood shalay aan haystay baan ka kaydsaday maxaan uga kaydsaday tamar aan maanta kugula hadlayo de aan podcastkiga ku duubeen aad ku sii dhaqaaqayso aan ku sii dhaqaaqayo 2 saacadood waxbaan ku akhriyay 2 saacadii bar waxbaan ku qoray saacadii bar waxa laga yaabaa inaan interviewgan iyo aan ku duubayo ama aan u diyaar garoobay ku waxaynay maxaan kaga waxaysanaya idan marka istiraatiijiyada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah waxaana yidhaahdaan inuu qofku ka faa'iidaysto waxa la yidhahdo Parkinson's law marka laga tago ahdaaf inuu dhigto oo yoolal uu dhigto yoolashu waa wixii marka hore xadidaya weeyaan inuu qofku leeyahay ahdaaf dhow oo 6 bilood ay soo socoto tusaale kale sanadkan maanta is weydiinaynay sanadkan 4 bilood baa ka dhiman 40 bilood maxaan doonaynaa inaan qabano waxaan doonaysaa 40 bilood inaan kala hadno 40 bilood maalin dhow waxaa imanaysa 31st December baa imanaysa oo habeenkii taagantahay kala bar leeyahay berri waxa weeye 2023 January 1st baa bilaabmaysa deetana markaa gadaal u eegtid maxaa doonaysaa inaad kala hadhid 4 bilood soo socota qodobka 2 3 4 5 6 7 gool baan rabaa inaan qabto okay 7 gool aad inaad qabatid deetana markaa sidaad u qaban lahayd baa hawsha taala qorsheynteedii baad u baahan tahay inaad qorsheysid ahdaaf marka waa ahdaaf noocaas ahdaaf labaad waxa weeye inaad samaysid ahdaaf ka dhaadheer oo ilaa 3 sano kuwa kasii dheer baad u baahan tahay ilaa 30 years from now waxaad doonaysaa inaad qabatid dadku way samaystaan ahdaaftu waa la samaystaa Sacuudi Arabiya 2030 vision bay leedahay dalalku way samaystaan shirkadaha way samaystaan institutionadu way samaystaan ashqaas xitaa way samaystaan dadka role modelskan rag badan oo kamid ah maka inta xaramka inta fadhiisteen bay qorteen soo sano maxaan doonayaa inaan noqdo qoraaban doonayaa inaan noqdo daaci baan doonayaa inaan noqdo iclaanka waxaan rabaa halka inaan ka gaaro personal development waxaan rabaa inaan halka ka gaaro training waxaan rabaa number 1 number 2 inaan noqdo caalamka it's goals ahdaaf dhaadheer weeyaan waxay qurxinayaan ahdaafta 3 sano qurxinayaan waxay qurxinayaan 3 bilood 4 bilood soo socota inaad ka faa'iidaysay qurxinayaan marka sidaas oo ahdaaf aad u samaysato haddaad doonaysa maanta 3 bilood socota laysanka inaad ku qaadatid oo jarmalka aad joogto ama aad doonaysa inaad skill ku baratid ama aad doonaysa dhaqaale yar ku save garaysid ama aad doonaysa inaad ugu yaraan de sharcigaaga xitaa inaad qaadato ama wuxuu doona ha meesha aad joogto caalamka inaad tiraadid lacag baan rabaa inaad business baan rabaa inaad doonayaan sameeyo sanadka 2023 maxaan u baahanahay $5,000 baan u baahanahay $5,000 sideen ku sameeyaa sideen maxaan ku samayn karayaa 3 bilood soo socda 4 bilood soo socda anyways ahdaaf weyna jiraan kuwa dhaadheer deetana marka ahdaaftii markaad la timaadid qof hadaf laa tahay meel baad u socotaa waxbaad taqaanaa inaad samaysato waqti xadidan baad leedahay 6 bilood baa haystaa 3 bilood baa haystaa 4 bilood baad haysataa deetana sidee 4 bilood hawlo badan oo kale aan leeyahay baa jira shaqaan leeyahay caruur baan korinaya مسؤوليات كله أبان هاي أضم بان هاي إلهي بان أضم كيس هاي عبادات باليجا ربع لكن شقدن تارجت كان الله سيدان وقف في ديستا I want to write a book for example كسوقات book بربعين أقرأ book أنا أقرأيه وين أنا قانو time blocking سي time كله block وين أنا قانو concept تيجا prime time كا قف prime time كيسي energy كيسي وقته كعسين وين أنا قانو بمدار techniques وين أنا قانو
around the concept waa dul cararaya oo waqtiga cidhiidhi inoo saamaxaynin techniques-kii wayna naqaano conceptiga la yidhaahdo Parkinson's law ma dhowdaan tilmaamay Parkinson's law waxay leedahay hawl kasta waxay isku dhex fidisaa ama shaqo kasta waxay isku dhex fidisaa waqtiga loo qoondeeyay haddaan idhaahdo buug baan rabaa ama wax ka soo qaad qoraanimo waxayna qoraan rabaa daas way igu badan yihiin course baan rabaa course baan rabaa ama maxaan oran kareynaa ka soo qaad wuxuu rabaa qof ka soo qaad online business inuu galu rabaa inuu course cusub barto oo online barto wax looga shaqeysto e-commerce inaan sameeyo website-ka hadda ka soo qaad website-ka waxaan rabaa inaan ku create gareeyo ama ku dhiso bisha September maanta waa kow anu xaggana kow bay taadin kowgiiba Afrika iyo Europe iyo Asia kowdii baa idin si gabaabsiya anu kow aroora ku jira kow 10 bay tahay hadda ku bilaagay bisha September waxaan rabaa in website-ku u dhamaystirmo haddaan iraado 30 bisha aan qabsado September in website-kan ku dhamaystiro waa ku dhamaystiri karaya sidoo kale waxaan ku dhamaystiri karaya waa waqtigaan qabsaday hawshan aan doonayo website dhisidda waxay isku dhex fidinaysaa maxay waqtigan u qoondeeyay haddaan 30 bishaan u qoondeeyana 30 bisha isku dhex fidinaysaa haddaan iraado labada wiiga soo socda 15 bisha marka la gaaro website-ka waa ga dhamaystiraya iyadana ku dhamaystiri karaya so to you now negative 5 movies waxa jira ustaad waxa xasuusay boogan negative 5 movies oo ka had oo qoray Patrice David is very wax uga sheekeynaya wad aragtay kulli qofku at the same time inuu qofku garan karayo waa maxay move kugu xiga tusaale ahaan oo kale maanta haddii aad baabuur wadon garanayo inta magaalo iga soo horbaxaysa goortan ku maraya iyo saacadan ku maraya meeshan socdaad garni time-kii mu manage garin karaysa marka waa inuu garan karayo qof okay halkee si istaagaya halkee ku sii maraya ka bacdi ana soo gaabin karayso kulli formulaga markuu isticmaali exactly wad dheerayn karaysa maanta waxay is weydiinaya Parkinson law marka laga fikiray waxa Peter Thiel iyo ninkan qoraya 0 to 1 billionaire-ka waxay ka waramaan maanta waxa laga waramaa yani okay iyadoo Parkinson's law laga faa'iideysanayo hadaaf baa jirta aan qoray ka soo qaad 10 sano socdo waxba doonaysa inaad qabatid waxa laga yaabaa dhaqaalahaan aad tiraadid waxaan rabaa $1 milyan inaan sameeyo the 10 years soo socda ama inaan 10 buug qoro ama inaan Allah musta'an PhD qaato 10 sano soo socda can you do in waxyaabaha qar 6 months ku sameyn karaysa soo gaab 6 months ku sameyn karaysa year ma ku sameyn karaysa waa la sameeyaa maanta هذا لو سميه تيم فيرسي رك فربنا كمية تنبيه أو عادي وسميه محل لقى فايدة سنة حير كان باركنسون إسلام السير ما تسول كل جالس ويا ما هو ما كان امتحان كل جالس ويا ديارين تيسا يورقد السول كل جالس ويا كوار كلنا ديسيد صدق نبرد وخد ديارين كراسة وسكون في دينسا لبها بين وظف فريسان كراسة then you will have the rest of the quarter كده وده يستا صدق البلاد صعب وده يستا وحكي لك كل كراسة مركب باركنسون إسلام concept يعرف كويس فهم conceptida kale u baahan inuu fahmo waxa weeye Allah musta'an time blocking waan ka sheekeynaa qofku inuu waqti xidho subax walba sababo kale anigu waxaan xidhaa 7 aroornimo marka qaarkood sabtidii xad 7 aroornimo xidhaa maalmaha weekdays-ka aroorina ka xidhaa dhici karaysa u badan tahay marka 9ka aroornimo 9 am ilaa iyo 1 ama 12 kan xidhaa waqtiga wax kasta cid kasta way ogtahay oo familkayga maalinka lama hadlo telefoonkan waa xidhanaya distraction dhan iska xiraya shaqada ay talaan focus ka saaray diirada saaray and I know sidoo kale prime waxaan garanaya energy-gaygu inuu firfircoon yahay waqtigaas garanaya waa dad baa night owl oo feedki ka dhigan karaya marka shaqooyinka hawloodu ka soo rawaxaan ilaa 12 habeenimo xidhan karaya marka adigu energy-gaaga waxa uu saaran yahay sidoo kale tamarteenu way kooban tahay every 25 minutes waxa la yiraahdaa uu attention-kaagu baxaya wuu xidhaya oo diirasari dadka ugu sii ka xirantahay qaar baa 30 minutes hela qaar baa every 10 minutes xidha qaar baa every 25 minutes xidha qaar baa 1 hour flow state ku jiri karaya flow state kuna waxa weeye xaaladda yani deep focus intense inaad ku jiri karaysid oo waxa aad ku dhex jirto aad ku fogan tahay aad ku xilaawaysid then si marka aanu distraction mar walba kugu iman waa every distraction kugu yimaada 7 to 11 minutes bay ku qaadanaysaa dib inaad hadana xaaladii aad ku jirtay focus levelkii aad ku soo laabato then when I tell okay every 20 minutes waxaan sameeynaya waxaan qabsanaya Pomodoro technique 5 minute break baan qaadanaya telefoonkaaga jimicso shaa soo shubo waxay ku soo laabaada 20 minutes kala dana xiro marka waxyaabaha waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka de waqti uu iskaga faa'iideysan culimadoo dhan iyo cudamadoo dhan iyo cid kasta wax qabata they have time blocking hadda waxyaabo u isticmaalo weeyaan Elon Musk qof kasta wax qabto u isticmaala Warren Buffett baa isticmaala 8 saacadood buu maalinkii report iyo book iyo wax akhriya
قصب لا شك بلوك تايم ما وحده وقت الناس markiina inaan block inaan sameeyno waxyaabaha in qofku waqtigiisa xidhi kara ustaad waxaad tusaale ugu qaadan karaysaa bal dadka reer galbeedku maanta xaqiiqada ay isticmaalayaan ee time blocking una shaqaysay diinteena xataa waan ka baran karayna oo waa ka tobanka dambe rabadaanka lagu leeyahay gal ixtikaaf gal isxid si aad blogga u samayso sababto deyna waa la garanaya maadaama diinteena ay sii garanaysa waxa dhacaya iyo waqti iman doonto qofku dictatorshipkiisa ku badnaan doono aad u baahan tahay mararka qaarkood inaad xidho ay muhiim tahay waa tusaale aan ka qaadan karayno nolosha aan ugu bedeli karayno kale waxyaalada diinta ka soo qaadan karayno ma dhinaca kale markaad akhriska ka eegto kale bal ka waran ustaad qof baa wuxuu rabaa inuu wax akhriyo waxa dhacda wixii sheegay uu bilaabay saxada anama asxaaban nahay badan ama kan buug soo bandhigo buuggii baa dhici karaysa in laba buug inay ku qaato 2 bilood 3 bilood dhalinta qaarkood waxay ka qayb qaateen koorsiga ama insha Allah fikriya buug oo barteen qaabka loo dejiyay iyo qaabka loo akhriyo oo qofka soo daawanaya aan kula talinayo haday dib ka haysato qaabka wax loo akhriyo iyo qaabka wax loo qoro ama sida loo dulmaray iyo sanad looga samaysto inaad ku xidhnaato barnaamijka fikriya buug oo aad 10 sano oo la soo koobay waqti kooban aad ku heli karayso waqti badan ka qaadan waxaan jeclaan lahaa inaan akhriska xilligan baranay ku heli lahaa waxay ga qaatay sanadaan 5 sano iyo 10 ku dhawaad inaan baro balse loo akhrinayo sa waqti loogu dhameyn karayo ما شاء الله دقنا ما أنت وقت كوبن أتقفكي كفوز سيكو فانسين كريسو وقرن كريو قفكي سيدا وحلا آخرية يسلوك فايديسن كريو سيدير كل التين لديستاد سطو قفك مركاي مكدوح آخرنا يوكالي ديستراكشن بدن هايستو سطو بلوكينج قصمين كريا مركو wax akhrina yo kale sidoo sameyn kareen waqtigiisa soo koobo ka bacdi uu focus ka saaro wax akhrina fahmi karo waa akhris korta waxna waa caado weeyaan waa akhris caado naaw hadda waxaad nuga fikirin inaad wax akhriso caadi ku tahay gadaashaada yaalaan bugta ku hareeraysan yihiin gaarigaaga labeena ku jiraan markaas waad soo qaadaysaa waad akhriyaysaa noloshaada qayb ka mid ah weeyaan adayga kama fikirtid socodka kama fikirtid cunada kama fikirtid waxyaabahaas caadi ku noqdeen normal weeyaan hebelka maalmaha telefoonka facebook aan galno kama fikirno facebook baan maanta galayaayay talow sideen u galaa culays baa iga haysta caqli yiraahdo ma already habid noloshaada ka mid u noqdo adoo ku jiro baad arkaysaa waqtina kaaga baxaya dan akhriska sidoo caado kugu noqotaa marka su'aash akhriska caado by the way caadooyinku waxay ka mid yihiin albaabada laga galo isbedelka isbedel waxaa soo tilmaamayna in waqtiga laga galo timeka qofku siduu uga faa'iidaysto ka faa'iidaysto si dabadar ustaad waxaan jeclanahay ku dawada si caado loo sameystaa sida caado loo sameystaa waa su'aal muhiim ah qofku si caado cusub u sameysan kara baqi kareenaaba waxa la yiraahdo buugaan ku dabaqayna aragtiyo kala duwan baa jira laakiin kuwa ugu fudud oo kale waxaa ka mid ah in qofku horta uu u baahan yahay waxan in horta si simple ku bilaabo you have to simplify si easy way inaad ku bilaabi karayso oo naftu waayo wax kastoo doonayna inaan qabano nafteena u rar resistance baa naga hor yimaada iska caabin gudeed baa ka hor imanaysa waana sababaha keentay in badan ka mid inaan wax aan dib u dhigano inta qof waxa laga yaabaa qof baa 7 sano ugu dambeysay dib u dhiganaya inuu wax akhris bilaabo والله iska caabintaas ka hor imanaysa ya marka inuu fudud si fudud qofka uu samaysto oo yani si fudud qofka ku bilaabo si fudud maxaan uga jeedaa waxay yiraahdaan make it simple make it obvious simple ka dhig oo maalin walba waxaad tiraahdaa meesha hore book baan rabaa inaan akhriyo waxaad tiraahdaa maalin walba waxaan rabaa inaan akhriyo 2 book muddo 2 bilood 2 book muddo 2 bilood waa very simple naftu ma diidayso 2 book cid walba akhriyo karaysa 4 daqiiqad ku akhriyaysa 5 daqiiqad ku akhriyaysa so qof 5 daqiiqo waaye ma laha then make it visible say visible uga dhigaysa meel walba inuu kula yaalo anu barigan caadada samaysanayay aan fikradaha aan isticmaalay waxa kamid ah yani gurigu ii yaalay kabarka meeshan chiefsan uu yaalay gaarigu igu jiray xafiisku ii yaalay aan ka shaqeynayo area meeshan ka shaqeynayo ii yaalay inaad basically visible ka dhigi karayso audio books ka dhegeysanaysa kaaseedada bariga audio book baan isticmaali jiray waxaan isticmaali jiray kaaseedadii video maaragtay gaariga la gashan jiray iyo cajalada baa la gelin jiray raadiyoogi cajaladii ayaan isticmaali jiray tan markii dambana CD gaan isticmaali jiray akhri waqtiga waxaan ku soo beegmay CD gaan ku soo beegmay qaar kamid ah buugta reer ah jira oo CD ga loo wareejin kuwa aan kaaseedka ku dhegeysan jiray cajaladii aan ku dhegeysan jiray marka inaad gaariga xitaa ku dhegeysan karaysid anyways meel kasta inaad visible ka dhigi karaysid hadaa maan doonaysid inaad orod bilowdin waa inaad ugu yaraan subaxii markaad shaqada ka soo baxo rawaxdo ama markaad doonaysid hurdada ka soo kacdo meelaad ka arki karayso dharkii iyo kabihii waa inaad samayso
simple naad ku bilowdo qaanuunada la isticmaali karo waxaa ka mid ah the 5-minute rule anigu waxaan samaynayaa only 5 minutes waxaan wax akhrinayaa only 5 minutes exercise-kan waxaan samaynayaa only 5 minutes 5 minute-ka homework-an ku yaal waxaan ka shaqaynayaa only 5 minutes waxbaan qorayaa book baa ii yaala marar fara badan waxaa jirta aan ku soo fadhiistay only 5 minutes bes ayaan maanta qorayaa laakiin 80% daraasadu waxay tilmaamaysaa 80% waxan waad wadaysaa 80% waxay u badan inaad dhammaystirto marka aad bilowdo waayo waa ma badasha sideedaba qodobkan xiriir baa la xiriira caadooyinka samaysashadooda motivation kuma yimaado shaqada ka hor only one time buu yimaadaa markaad wax bilaabayso wax kastoo maanta bilaabayso waxaa laga yaabaa interview iyo wada sheekaysiga inay ku dhiirigelisay qodob uu ustaad cabaarku yiri ku dhiirigeliyey deetana xamaasad baad qaaday wallahi waxaan waa samaynaya that's the only time inta badan la helo xamaasadda la helo laakiin marka aad hawshii bilowdo maalinta koowaad iyo maalinta labaad maalin saddexaad sababtaad waxaad u bilowday baad ilaawaysaa xitaa dan marka shaqada halkay bilaabaysan halka diibka markaad ku jirto halka sidee marka u sameeyaa sidee isku xamaasad geliyaa sidee u sameeyaa 5 minute rule ku caawinaya marka inaad tiraahdo marka okay hawshan only 5 minute baan qabanaya deetana maxaa dhacaya wama baymanaya daraasaadkan waxay leeyihiin 80% waxay u badan tahay qofka shaqada uu bilaabay uu sii akhriyaya sal waxaan yidhi 5 minute kaliya waa akhrinayaa buuggii culays baa iga saaran way igu adag tahay inaan bilaabo mar walba xalina dhow baad akhri doontaa waxaan leeyahay only 5 minutes baan buugga akhrinayaa buuggii baan soo qaatay waan kala furayaa only 5 minutes nafteeda waan kula balay 5 minutes 5 minutes markaan dhex galo stimulation maskaxdeeda ku imanaya wixii baan dhex gelayaa waan akhriyayaa deetana waxay u badan tahay inaan 5 6 7 8 boog kala akhriyo 80% idan marka taayna sameeyay deetana inaad joogtaysid you have to chain-ka inaadan jarin ilaa caadada ka samaysataa caadada maxay ku samaysataa ilaa 2 bilood 60 days bay ku samaysataa waxay ku kala xiran tahay hadba caadada noocay tahay caadada way kala fudud yihiin way kala culus yihiin akhriskoo kale 2 bilood waa inaad xidhiidh wadid 2 bilood haddaa wado maalinkaad bilowday iyo maalinka kontonaad ama kontoneeshanaad isku mid kuma noqonayso resistance iska caabin ma dareemaysid then sidoo kale community inaad yeelatid meel wax lagu akhrinayo asxaab wax akhriyaysa inaad yeelatid anigu cid walba waan ugu bishaaraya haddaad doonaysa inaad wax akhrisid oo doonaysa caadada maanta inaad samaysto horena aadan u lahayn laakiin 5 qof ee kugu hareeraysan aanay ahayn dad wax akhriya oo kugu bishaaranaya it will be very tough inaad wax akhrisid because saaxiibadaadu waxay samaynayaan waxaad ku qancayso qanaacada waxaad raalli ku noqonayso ayay samaynayaan maanta haddii saaxiibada aanay waxba akhrin adiguna maalinka 15 daqiiqaad wax akhriso waa isla qurux badnaanaysaa dad maalinkii saacad ama 2 wax akhriya markaad la saaxiibto waad qawadaysaa 15 daqiiqo walaa waa laga tagay baa leedahay yaa raallinimo waxaad ku qancaysa yaa gooy marka asxaabtaada marna maxay gooyeen inaad ugu wanaagsan tahay 15 daqiiqo maalinkaad wax akhriso because iyagu wax ma akhriyaan marna maxay gooyeen in 15 daqiiqada ceeb tahay oo meeshan 30 daqiiqo ka badan saacad la akhriyo waxaad ku raalli noqonaysaa goynaya marka you have to have a community waana sababtaan u sameynay fikradii book club dhowr boqol qof baa ku jira oo qaadanaya maartay book baan isla akhrinaa waa la isku challenge gareeyaa waa la yimaadaa waa la wada gorfeeyaa you have to find naadi qasama inaad book club kanaad gashin in naadi oo hareeraha ka dhisan baad samayn kartaa sidoo kale inaad akhrisid dadka wax akhriska hadii jeer ku foogan cudamada ku caan baxay inay wax akhriyaan taariikhdooda akhri I like inaan akhriyo shelfigayga buugta qayb dhan baa biography biography inaan akhriyo because biography wuxuu ku siinayaan meesha aad joogtid bay ku tilmaamayaan qof cadiima markaad akhriyaysid meeshuu taagan yahay iyo adna meesha taagan tahay waad ka dhex arkaysaa dama waxaad arkaysaa inaad sakhiir yaro meel cidla halkaas ka taagan tahay markaad buuraha dhex taagan tahay ilaa wuxuu yidhi ka fikira safra oo waxaa ka fikirtaan khalqiga ilaahi iyo abuuristiisa dee buuraha iyo badaha iyo cirka iyo waxa markaad eegaysid yaraantaaday tilmaamaysaa oo xagga yacni way ku waxaynaysaa laakiin xagga markaad eegtid waxyaabaha faa'iidadu leedahay faa'iidooyin kale waxaa ka mid ah waxaad arkaysaa qofkan cadiimka ah ee weyn ee sida bini aadamka u majeeranayo ee noloshiisana quruxda badan leh waxaad arkaysaa horta kow waxaad ogaanaysaa meesha adigu aad joogtid iyo gaabka idiin dhexeeya iyo shaqada kuu taala inaad qabato mar labaad waxaad arkaysaa qofka dhinaca cadiimka aad akhriyaysid taariikhdiisa wax isagu ku yira liitay laakiin adigu ku fiican tahay markaasaad dhiiranaysaa wallaahi bilaahi waxaa miyuu ku liitay anigu ku fiicnahay haddaan samee ka hor meelo yarood qabqabsataad helaysaa aad ka kori karaysid nolosha weyn ee cadiimnimada lagu noqonayo buurta fikteeda sare la korayo meelaad ka qabsato
ayaad helaysaa marka waa very good inaad dadka cudamada akhriska iyo sidee wax u aqriyi jireen sidee u fikiri jireen arrimahaas oo dhan baad ogaanaysaa oo wax weyn runtii kuu tarayo waqti badan ku weelanaya ku safgaranaya waxayna kaa sahlaysaa markaad akhriyayso waxyaalada aan akhriska iga cajibiyo waxa ba ka waran qof wax lagu qoraya luuqaday ka qurux badnayd ereygu ka wanaagsanaa baa la dooranaya ma caajisaysaa maanta haddaad hor fadhido qofka ugu sheekada macaan adduunka marna ma dareemaysa ka war aduu qof kuu sheekeynayo sheekadiisii aad dhegaysanayso waxa weeyaan oo ereygu kaga muhiimsanaa uu kaaga soo dhex dooranaya ma jirtaa ustaad tusaale ahaan oo kale markaan imka akhriskan bilaabay ad waa nacba waxaan qof aan akhriskiyo waxaa jecleen waxaana ii sababa kole hore baan kaaga sheekeeyey dhegaysigoogii waxaan ku badnaa dhegaysiga si wax loo dhegaysto laakiin waxaan arki jiray aabbahayo akhrinaya oo akhriska jecel 24 saac ku mashquulsan adoo teenager markaa too kale dhalinyar aad too kale ma sii xisaynaysa waxaa dhacday qisooyinkii badan akhriska igu soo celiyo waxaa nin jarmalo oo ishtee auf kule dadka jarmalka ku hadla af ingiriis ma jiro haddii aad heli karaysaa waa 90% nin jirkiisa curyaami oo 10% oo kale haati shaqaynayso noqdeen nolosha quality-ga sare uga gaadhay markaan qisadiisa akhriyo waxa ii sababay inay indhuhiisi furmaan dhado okay waxaad helaysaa su-aashaadii ahayd markaad ka aragto meeshan ka dhibna adigu ku wanaagsan tahay aad bilaabayso ku dhex gelinaysa ku dhiiri gelinaysa wax kaa dhex shadaysa marka wixii dhiiri waxa kamid ah 90% qof curyaana oo 10% noloshiisa ay shaqaynayso hadduu bulshada eg iyo halkaa uu gaadhay adigoo 100% caafimaad ku siisay inuu gaari karin marka ustaad I like waxa weyn aad baan uga helay wax ku taabanaysa marka qaabka qofka la akhriyayso meesha ka dhiman inaad adigu u qaato cilmiga bani aadamku qof walba waxbuu ku liitaa qof kastoo maanta role model ku ah haddaad noloshiisa lagu furo wax adiga ku fiican tahay soo ku liitaa jira marka halkaa waxay ku siinaysaa little bit self esteem iyo kalsooni iyo maaragtay dhiiragelin bay ku siinaysaa oo leedahay wallahi haddii waxaan soo ka dhiman yihiin saabaad sheegaysid adigoo intaaba kuu dhamaystiran yihiin ama intaa aad haysid khibradaale ama kaa leh ama kaa og maxaad u samayn kari laadahay caqabadii qofkaad arkaysaa marka waa very important arrinta buugta dadku inta badan waxbay dhegaystaan oo inaguna waxaana dadka dhegta maalaana aad u maalaana waa lagu bartaa aad baa loogu bartaa laakiin buugga iyo dhegaysiga youtube-ka markaa dhegaysanaysa ama podcast aad dhegaysanaysid the difference weyn baa u dhexeeya aduu waxa laga yaabaa maanta marka qofku aad dhegaysanaysid qofkan wax badan markuu hadlayo ma filter garayo that's why anu edit garaynaa hadhow loo soo edit garayaa mararka qaarkood wax loo waxeeyaa marka qofku mar walba siduu wax u rabay ama siduu ma u sheegi karayo because maskaxdeenu hadalkeenu wax qasab waxa weeye inaad sidaad wax u process garaynaysid iyo hadalkaaga process speedkiisu waa inay wada socdaan haddii kale maanta oo dhan dee qofku ku caajisaya soo si uu qofku iskula socodsiiye marar fara badan wuxuu isku dayayaa inuu dedejiyo hadalkiisa oo processkii maskaxdiisa ula qaado wax badan marka luus garaynaya qofka oo uu ka boodaya oo filterkii aanu marinin laakiin marka qofka uu wax qorayo erid buu sameynaya saad sheegaysay erey ka qurux badan yahay jumladba jumladay ka qurux badan tahay habdhis buu u sameynayaa introduction buu u sameynayaa lakabyo u sameynaya conclusion buu u sameynaya wuxuu sameynayaa diraasaad buu kusoo daraya fikir badan baa gelaya bani aadamkuna sidiisaba marka uu fakerayo iyo marka uu wax qorayo farqi weyn uma dhexeeyo because waxa la yidhahdaa qoraalka laftigiisa waa fikir waa farqi u dhexeeya qof markuu hadlayo ma fikerayo wuxuu ku fikerayaa waxa weeye thoughtska uu siduu u qaban lahaa humaagan u soo baxay uu doonayo inuu ka hadlo iyo khibradan uu doonayo inuu tilmaamo iyo ereygee ugu habboon oo u qaadaya iyadana waxay kusii kala xiran tahay siduu qofku vocabulary-giisa iyo kayd vocabulary-a siduu u leeyahay bay u kala xiran tahay inuu si degdega u kala dooran karayo waayo fikradda sideeda waxa weeye waa product aan kasoo qaadnaya product oo kala tahay ereyaduna waa transportationki wixii sameynaya weyaan product baad samaysay product waxaa u baahan tahay transportation speed inuu kuu qaado oo adresskii qofka kuu geeyo tanna waa saas oo kale maskaxdaada fikrad baa humaag baa ka muuqda humaagaas waxaad doonaysaa wax kuu xambaari karaya deetana kayd ereyo fara badan qofku markuu haysto wuxuu kala dooran karayaa ereygee ku habboon ereyga ku habboon si fudud fikraddan intuu u xambaaro qofka kale maskaxdiisa u gelin karaya marka waa kayd erey bay la xidhiidha marka waxaan ka wadaa ma haleeli karayo qofku marka uu hadlayo ereyadii inuu kala dooran karayo waa speed socotaa laakiin oo waxaa ka filter fiican qofka dhegeysanaya maskaxdiisa inuu ka shaqayn badan tahay den markuu hadlayo adiga aad dhegeysanaya ama qofka dhegeysanaya ayaa maskaxdiisu ka shaqayn badan tahay aniga hadda hadlaya marka wax badan buu qofku luus garanaya waxaan uga jeedaa ma undermine garanayo in wax la dhegeysto laakiin wax akhriska ka raandis badan ka cuddoon
adu laftirkaaga waa degan tahay markaad wax akhriyaysid waxbaad ka qoran karaysaa isagu laftirkiisa wuxuu kasoo baarandego soo quraaraday oo daraasaad ku soo daray oo si structure gareeyey oo si fudud lagu yiri cun weeyaan tafatir badan lagu sameeyay shaqada galaysa say kala ahayd intaasoo exactly daabacaan la soo mariyey laga soo shaqeeyey weeyaan oo qofkan baby yar u dhalay weeye dee uu ku keenay maskaxdeenu kale waad garasay u shaqayso waxa weeyaan qaab waxa la yiraahdaa sida copy paste iyo kale wax bay arkaysaa show eg bay sawiranaysaa tusaale ahaan markaad qofku shay kuu sheegayo laga yaabaa in ereygaisa kugu socon ay maskaxaad wax lamid ay relate sameeyso noloshaada meel ay ka taabanayso sidaad baa kuu sheegayso kale tusaale ahaan wuxuu ka hadlayaa qofku sida ganacsi loo bilaabo ama siduu ganacsiga uga bilaabay scratch so maskaxaadu waxay dhacaysaa fursad adig ku banaan ay ku tusi karto kale ku tirada okay halkana ka banaan ma samayn karaysaa wax u eg wuxuu ka hadlayay kama fikiraysa laakiin wax u eg bay karaysaa ereyga uu yiri waad baxaysaa experience-kaagi baad dul saaraysaa kabacdi wax wixii maanta eegno teknolojiyada bal u fiirso shayba noo gudbiyey oo raadiyo baa laga soo gudbay tv baa la yimid digital baa la yimid smart baa la yimid social media laga soo baxay maanta live baa nako laba qarado kala joogna kuwada sheekaysanaya fikirka maxaa keenay qofkii shay buu arkay maskaxdiisa waxa kusoo dhacaysa in waxaan sii bedeli karay fikirka hore buu jiray laga yaabaa inuu akhristo qisada buugga qofkan sameeyey live-ka kabacdi ku soo dhacday okay hadduu live ka sameeyey anigu ma samayn karaya live labadii qof oo meel kala joogtay inay soo gali karayaan soo markaad buugga akhriso wuxuu leeyahay qofkii sidoo kale inuu fursad helo maskaxdiisa u fikir karayso fikir noloshaada oo bedelaya inaad boqolaal buug akhrido laga yaabaa hal buug oo kamid ah noloshaada dhan saameyn ku yeelo maadaama right click saxda kale hadaad ku dhufato danka uu bedeli karayo waxa weyn waa ustaad waa muhiim waa aad waxa weyn meel muhiim ah taabatay oo ah anan in laga eegana ay tahay inahayn kaliya waxaad akhriyayso iyo qaabka aad u samaynayso sam processka u samaynayo akhriskuna dee muhiimadu waxa weeye dhegeysigu is not enough waxna hala akhriyo oo akhriskana isbar dhegta kaliya inaad maasho dependent ku noqona ku yani iyaduna adeegsan labadaba adeegso maanta caalamkan ustaadu isbedelaya daqiiqada isku bedelaya maanta wixii shalay dhacay oo bari soo laamay inkastoo 90% ay yihiin wax hore u soo dhacay oo nooc kale oo la sameynaya haddii aad qisooyinka soo akhrisatay kuguma cusboonaanayaan waad arkaysaa marka maxaad oran lahayd siyaasi dadku dhalinyarta maanta inay noloshooda bedilaan rabo daaminaadka isbedel kale sidee fursadan uga faa'iidaysan karayaan teknolojiyadan maanta meel walba uga bannaan ay helayaan fursadahan adigu maad haysaan maanta ahayd in aad u samayn karayso club dhalinyar aad heli karayso community aad ku xidhan tahay inaad heli karayso audience meel aad ka qaadan karayso koorsi waqti fududa in aad buugga ugu dambeeya online ku heli karayso fursadu ciidii ka baday dadkii kaliya hatay qaadanayay baa ka dhiman marka qofku maanta fursadan aan joogno waqtigan aan joogno qarnigan aan joogno siduu uga faa'iidaysan karaya uuna noloshiisa ku dabiqi karaya maxaa siis orleed waa wax ugu wanaagsan ee maanta uu qofku oran karayo meesha uu ka bilaabi karayo uu noloshiisa ku bedeli karayo isbedel guul iyo ka arki karayaba muuqaalkayga risaltiga walaa horta nolosha maanta aynu ku noolnahay si weyn baa loo oran karaya marka la eego shakhsiga iyo waxqabadkiisa iyo inuu wax qaban karayo meel gaari karayo aad bay ugu shaqaynaysaa system capitalism baa dunida ka jira oo hantigoosada oo shakhsiga individualka u shaqaynaya cawlamada dunida ka jirta globalizationka dunida ka jirana maanta dee qofka keligii ee doonaya inuu meel ka soo baxo yes waqtiga maanta aan ku noolnahay wax badan oo uga xun tahay ama uga dhib badan tahay waqtigii lasoo dhaafay baa jirta maanta xasiloonideennii baan laanahay oo information overload baan ku socday len nimco kastoo timaada nuqsaanteedii bay leedahay oo marka wax badan oo dee xun oo qariban oo noloshii dunida biniaadamka iska bedelayo oo fara badan baa jira oo nagu hareeraysan oo cawlamada inoo keenayso waa shar iyo khayr labadaba way keenaysaa laakiin qofka doonaya maanta isbedel inuu sameeyo dhan kasta uu doonayo inuu ka sameeyo match yani boqol jibbaar bay uga fursad fiican tahay qof noolaa 30 sano 40 sano ka hor ma soo marin dunida inta taariikhda casri la garanayo ma oran karayo waa nabi Suleymaan iyo waqtigiisii baa dunida soo maray oo dee dabeelaha iyo shimbiraha iyo jinka iyo cudur buu adeegsanayay oo wax kasta la qaban karayo bini'aadam ka awood badan mararka qaarkood laakiin inta taariikhda casriga aynu garanayno bini'aadamka ee contemporary-ga ah ma jirto waqti lamida dunida ma hayno idan marka meel kastuu doonayo maanta dhalinyaro fara badan baan arkaa mararka qaarkood iyagoo soo sheer garaynaya certificate ay ka qaateen Harvard iyo Yale iyo Cambridge iyo Oxford ay ka qaateen 10 years 20 years ma impossible haddaad doonaysid inaad wax baratid is very possible maanta haddaad doonaysid
inaad dhaqaale samaysid is very possible qofku maanta course buu create garan karaya waxaad aqoon u leedahay baad course create garan karaysaa website-kii baad dhisanaysaa waad iibinaysaa very easy bimacnaa maxaan uga jeedaa dad aanay arrintan suurtagal u ahayn way dhici karaysaa way jiraan oo aan laakiin wax iyaga laftigoodu hadday helaan information bini aadamku waxa isku qartay waa information gaban just when you know better you do better markaad wax og tahay wixii aad ku jirtay waad ka baxaysaa gaarigaa doonaysa inaad wadatid shahaadada doonaysa inaad qaadatid ganacsigaa doonaysa inaad samaysato life styleka doonaysa inaad ku noolatid kulli they're available kulli way yaalaan cid kula midaa samaysay laakiin adigu waxa weeye weli maadan noqon qofkaa maadan noqon maxaa uma jeedaa qoraa waad noqon karaysaa oo qoraannimada adigoo buuggii aad qori lahayd waa yaallaa halkaa waa yaallaa it's very possible laakiin adigu weli qoraa maadan noqon millionaire waad noqon karaysaa oo $1 million inaad samaysid qof adiga kula mid iyo mid kaa nolol hooseeya iyo mid kaa duruuf hooseeya iyo mid kaa maaragtay fursadaha haysta mid ka yar haystay ayaa noqday then millionaire-ka waad noqon karaysaa but you did not become a millionaire yet macnaheedu waa maxay had fikirkeedii skillskeedii wacyigeedii connectionskeedii wuxuu baa kaa maqan maanta waxaa la yidhahdaa lacagta dunida taallo haddii la qaybiyo bani aadamka iska si loogu qaybiyo muddo yaroo kooban waxay gacmooda ku laabanaysaa intii billionaire-ka ahayd waayo because bani aadamka intooda badan billionaire may noqon mana garanaysa se loo manage garanaysa they don't have the mindset they don't have the wixii dhan ma laha intii billionaire-ka ahayd unbay dib gacantooda ugu laabanaysaa muddo yaroo kooban waay bay ugu laabanaysaa kulli baa naloo wada qaybiyey lacagta si baa nalagu qaybiyey why Jeff Bezos iyo Elon Musk iyo rag la mida dib ugu laabanaysaa why iyo Bill Gates because iyagu they became billionaires marka adigu waxaa naga dhimi waxa weeye un ka hor intaanan garaasiintaadan guursan aanan qorin it was possible inaan garaasiintaada guursan qoro laakiin I became qoraa maxaan samaystay inaan qoraanimo hadaf baan samaystay skillkeedii baan samaystay connectionskeedii baan samaystay habitskeedii baan create garaystay wax akhriskeedii baan la imi habaadhideedii baan la imi processkii lagu noqonayo dhan baad la imi maanta is very much easier wadadii aan usoo maray garaasiintaada guursan buu kala dan qoray is much easier because I became qof wax qori karaya on you know the way ganacsigu waa sidoo kale maanta raggan ganacsadayaasha waaweyn la garanayo Soomaalida uma fududina uma adkayna ganacsi ka sameeyaan because they became ganacsadayaal already ninka daaciga he already became daaci maanta scratch soo bilaabay he knows wadada uu maray uu yaqaan wax badan baa dunida maanta aan noolahay possible wax badan oo dunida maanta aan noolahay oo possible jira laakiin adigu diyaar ma u tahay diiwan meesha taagan tahay hadda aad fadhido ee aad ku qanacsanay inaad ka ruqaansato ka dhaqaaqdo oo tagto meeshan kale aad jeclaysanayso ee calanku ka taagan yahay ee aad ku riyoonayso are you ready diyaar ma u tahay motivation baa la iskaga qaadan karaya kan baa la iskaga qaadan karaya no it's not it's more than motivation it's more than it's xaqiiqo it's something that 7 years ago aanan ka fikirin waxyaaba maanta anigu ii suurtagelaya ama sida Amar uu suurtagelaya 7 years kama fikirin laakiin through reading through skills through connection through maaragtay wacyigaagii aad bedeshay through habits cusub aad samaysatay through skills cusub aad qaadatay that's it marka everything is possible wax badan baa maanta fudud wax kastoo imagine gareyn karaysid waa possible wax kasta laba jeer bay dhashaan marna halkan bay ka dhashaan marna ficil bay ku dhashaan so inta hadday ka dhalan karayaan oo arki karayso waxaad doonaysid inaad noqotid ama qabatid ficilkanna waxa weeye skillskeedii habitskeedii connectionskeedii networkingkeedii wacyigeedii experiencekeedii that's all inta ka xigta waa intaas are you ready marka inaad samaysato caadooyin cusub inaad samaysato information cusub inaad hesho connection cusub inaad samaysato experience cusub inaad gasho skills cusub inaad barato wax badan ka tanaasusho tadxiya la timaado you ready for it it's very possible waqti waxaan nool lahay the golden age sidoo sad warsama yiraahdo xilli golden age aan nool lahay ya golden mar dunida waqti sidoo kale inta anu taariikhda casriga aan garanayno ma jirto laakiin uunde wadadeedii iyo aftinay ka go'an tahay sheekada waxa jirta dadka ka sheekeeyo wax walba noloshooda sideedaba yani عزيمة iyo go'naanshaha iyo go'aanka kuma soo hadho si kastaad maanta xurrabi karaysaa
laakiin adiga iyo waxa idin dhaxeeya bilowgeeda waa go'naansho laba jeer bay imanaysaa inaad caziime la timaadid ka go'naan koowaad inaad la timaadid markaad wax ku dhaqaaqayso koo waa inaad tiri horta riskigeedaan qaadanaya awan wax kastoo iga hor imanaya waan uba bacdhigaya kama baqayo dadka waxay aragtida iga odhan doonaan kama baqayo unknownkan iyo waxa iga hor imanaya kama baqayo inaan kufo oo kaca kufo kama baqayo de waa inaad la timaadid go'aan tan labaadna maxay timaadaa persistencekeeda sii joogtaynteeda ilaa aad ka gaadhaysid yoolka kuwa cad inaad u dhabar adagto go'aan labaad bay u baahan tahay soo labada jeer baa go'aan loo baahaya walidaalika nabi sal slam markii uu yimi cali ibn abi talib radi allahu anhu wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahi ila dardara oo ila tali waxay ii sheegay wadi tusaale markaas wuxuu ku leeyahay nabi sallam waxaa ku ducaysataa allahuma hdinii wasadidnii ilaahayow hadee oo qofku dhalinyarada yacni afkaar badan buu leeyahay meelo badan buu ku riyoonaya laakiin experience badan baa ka maqan ilaahay horta marka ugu hore talaabada meesha ka qaadayo meesha saxda horta iga dhig oo goolkii igu hagaaji horta the right goal inaan doorto horta goolkii saxda inaan doorto because so many goals maanta ka fikirayna qaar ka mid a asxaabteena iyo waalidkeena iyo dadkii nagu areereysnaa ay nagu abuureen oo aan ahayn kuwii dhabta ah inagu gudaheena iyo koolinkeena aan ahayn ilaa horta goolka saxda igu hagaaji deetana hidaayadu way balaaran tahay dad qaar baa laga yaabaa inay u arkaan yidhahdaa mama tii cibaadada iyo aakhiriya no adduunyadu waa meeshii loogu cafaarigsanayay loogu diyaar garoobayay aakhirada goolkan aad haddaad saxdo oo niyadda wanaagsan la timaadid kii jannada ku geenayo noqdaaba dhici karaysa idan marka ilaahu hadee oo waddada saxda igu hadee deetana goolka marka aan doorto wasadidnii inta aan ka gaadhayo sadaadku waxa weeye marka waranka la tuuro ilaa bartilmaameedka uu ka gaadhayo inuu kusii sugnaado wasadidnii inta aan meesha ka gaadhayo ilaahu isug marka kow caziimadu waxay baanaysaa go'aanka iyo commitment waxa laga baanaya marka ugu horeysa inaad la timaado aad ku dhaqaaqdo iyo inaad adkaysato because it's not easy 90% saad wuxuu rabtay ma noqonaysa 90% laakiin sidee flexible u noqon karaysaa sidee sida biyo kale aad u noqon karaysaa biyuhu marka ay gidaar ku yimaado waxay isku dayaan dhinaca inay ka maraan dhinaca hadduu ka xidhmo kor bay ka maraan kor hadduu ka xidhmo hoos bay ka dusaan ma waayaan way ay waddadooda ku maraan sidee flexible u noqon karaysaa aad hareeraha uga bixi karaysaa waddadooda kuu qaadato there is nothing linear ma waddada guusha waxa weeye waa zigzag halkan bay ka baxaysaa halkan bay ka dhacaysaa cirkay tegaysaa hoos bay u dhacaysaa sidee ugu dul qaadan karaysaa kaa go'naansho kaaga iman karaysaa marka waa rabitaan xoogan iyo ka go'naansho sheeko waxaa jirtaan ka sheekeeyo sheekadaba ku keenay oo ahayd yacni ninka taajirka u yimi wuxuu noqon karayaa ninka caalim buu noqon karayaa taajir buu noqon karayaa si kale successful uu noqon karayaa adna uu yimi wuxuu ku yidhi waxaan rabaa inaan noqdo hantiile etana wuxuu yidhi hantiile rabtaa inaad noqoto miya haa maalin heble isugu kaaya keen meel hebla marka meel xeeba ayuu ku beladiyey etana markay sarkeen ay kulmeen gacantuu qabtay uu yara kaxeeyey xaggii biyuu u dhaqaaqay etana biyihii baa loo hala galay markaan yaabay wuxuu leey biyaha xaggee igu wada anigu hanti iyo waxbaan doonaya inaan etana wuxuu yidhi nakici biyihii bay wada isku raaceen biyihii canqowyada u istaageen halkaa kurkurada u istaageen jilbey u istaageen bowdada u istaageen miskey u istaageen halkaa naasay u istaageen garbey u istaageen halkaa markay u marayaan biyaha qoorta intuu qabta nin weynna waa wiilkan wiil yarna waa intuu qabta madaxa u gelinayaa biyaha deetana markuu qayliyo oo uu hafto ayuu ka soo saaraya markaasuu haddana ku celinaya 3 jeer buu sidii calay xal samaynaya deetana su'aal buu weydiinaya wuxuu leeyahay markii aad biyaha madaxa kula jirtay wax kaliya u baahnayd muxuu ahaa kaasuu leeyahay hawo inaan qaato inaan neefsado inaan hawo qaataan u baahna markaasuu leeyahay marka aad inaad tiiro noqoto aad u doonto sida hawada markii aad biyaha madaxa kula jirto aad u doonaysay markaasaa hantiilo noqon karaysaa wow very powerful caalim bay noqon karaysaa kasoo qaad qofka inaad rabtid inaad noqotid daaci inaad noqotid kasoo qaad qofka qoraaga ugu wanaagsan maanta aad jeceshay role model ku ah inaad qoraa doonaysid inaad noqotid aad qofka hala kulantid oo sidaa kugu sameeyey inte leeg bay kaa go'an tahay inaad waxaan samayso because it's not easy waddada loo marayo haddii cid waliba waddadan ay fududahay cid kasta waxay noqon lahayd hantiile cid walba waxay noqon lahayd successful biniaadamku dadkan aan aragno intooda waxaan ka aragnaa only 10% the tip of iceberg baraf badeeda buur baraf badeeda biyaha ku jirta waxaa la yihahdaa 10% baa laga arkaa 90% way aasan tahay dadkan aan u jeedna noloshooda jeclaysanayno iyaga siday noqdeen aan doonay inaan wada noqono 90% iyo waxa aasan waxaan aragnaa un dhaqdhaqaaqooda dadkan soo dhaweynaya
buugtan ay saxiixayaan safaradana ay gelayaan hantidana ay haystaan nolosha sida quruxda badan wax loo albaabada loogu furay waxaasan aragnaa laakiin 90% waxa taa waa 10% kaliya waa intii quruxda badnayd 90% waxa aasan resistance self doubt ka fara badan oo ka hor yimi intaasoo caqabadood oo ka hor yimi ka gudbeen persistence fara badan soo jeed fara badan niyad jab fara badan dib u dhigasho fara badan aduu you name it wax kasta oo culaysa oo guusha ka hor taagan waa soo wada maray bale inta in ka badan baa soo maray intaas dhan baa aasan inagu ma aragno qofka markuu xumalaya guushin wax yar iska fududo boorso yar oo la qaato halkan laga dhaco halkan it's not ma wada dheer baa loo maraya marka ayaan ku dheeraan it's very possible waqti fursad la maanta nool lahay find the right people maskaxdaada hube aqoon iyo caqiido saxan iyo self doubt kaaga inaad ka hortimaado iska caabiso saas kaga dhaqi lahayd baad u baahan tahay waayo thoughtska halkan ku keenay kuma geyn karayaan meesha kale thoughtska dib ku haya horumar kuma gaarsiin karayaan marka thoughtskaaga saad u bedeli lahayd asxaab cusub saad u samaysan lahayd saad wax u akhriyi lahayd skill cusub u samaysan lahayd habit cusub u samaysan lahayd more importantly lana waxa kasii muhiimsan waxaasoo dhan meesha aad doonayso horta aad adigu bartilmaamisan lahayd adigu inaad doonaysid ay adigu kaa go-an tahay adiguna aad rabto tan intaasoo juhd iyo wada dheer baa ma kuma odhanayo hal mar waxay ku fududaanay wax walba ku fududaanaya ustaad allaha ku barakeeyo allaha ku sharfo allaha ka hajisaysiiyo waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen amlen ilaa anu waxaan kaa bartay lama soo qiyaasi karayo waana sababtaan podcastyadan u sameynay inaan la kulmi karayno shakhsiga sida ustaad mubaarak oo kale aan ka baran karayna dhammaantiin oo dhan qof walba wax buu garanaya qof kalena waddo ka duwan buu garanaya si aad u barataan ood uga guulaysataan waxaan rajeynayaa inaad heshaan waddo aad jidkiina ku mari karaysaan aad ku guulaysan karaysaan aad ku dhisi karaysaan wax ku bilaabi karaysaan isbeddel ku samayn karaysaan ustaad allaha kaa jisaysiiyo allaha abaasiyo waqtigaa soo qaadatay iyo cilmigaad la wadaagtay iyo sida talada wanaagsan na siisay aad baan ugu faraxsanahay inaan podcastiga dadkii ugu horreeyay ka mid ahay shaxda guusha inshallah inaynu wada guulaysano fi aakhiraba ayaynu doonaynaa fursadda dhalinyarada aad u fidisayna aad baan kaaga mahadnaqayaa annagana fursaddaa noo siisay inaan asxaabta dhalinyarada iyo aan la sheekaysan karaynana aad baad ugu mahadsan tahay ilaah subxana taala ku barakeeyo allaha kaa jisaysiyo